asxaabta waan idin salaamayaa meel kasta dunida ka joogtaan bal ku soo dhawaada ciyaarihii iyo warkii ugu dambeeyay koldaarana soo qaadan doonaayo war maxaa laga yiri ciyaartii weyneed ee classical cusub ee Ingiriiska waa El Clasico waa ka dareemayna classical tahabe wadnaha ku dhacayabe bareesharka dhiiga kor buu ka kacaya الله إلهي وريه ولي نصيري دي متى الرمان سيتي ليفربول اسبوع دمبه لكن تاني يدن ugu jirta يا بريمير ليج qaadaya halkeebu horiyaal kan u socda يا بحر ku jira iyo kuwa kale soo qaada doona asxaabta ciyaaraha kale subscribe-ka noo saara ku channel-ka cusub ku jiray share-ta iyo like-tan isku dirkan asxaabta ciyaaru jecel bal barnaamijkan u gaara يا والله yaabay oyay maxaa anfur la cunaabo anfurkii dhanba ma taqaana yani waa ka keenay bukuanbe markaad saa loo anfurmay ciyaartii bilaabatay bilowgiiba De Bruyne shabaq u gaarayba ma waa afkiya lagu hayaa baashiba ya war qaarkood baa habeenka ma tag galay war habeenku qaarkood baa ma taqaana cunadii yani nin oo dad oo fiyor soo bixisa hataa waa laga yaabo guriga hor xalin way yaabtay dad ma taqaana anfurka garaacaya jira oo saxanka fiyoriis soo bixinaya ya waa laga nas dadkaas markay saa loo mar u qaateen ma wala soo dhawr ninka majriya maxabada ku dhacay master fiyoora le fiyooraha la soo bixin ama dadka dada waxa saxanka saasan ahaan jirnay ya qof goonimo ba laha anaga dhan waa saas saxanka fiyooraha soo bixina Soomaaliya daan anaga dhaqankeena sida shuqul gaalka kala ma ahan shuqul gaalka laakiin waa caafimaadka sida ku jiriya waxay sameeyeen hadda shuqul gaalka anigu waxaan ka bartay tibiska balance meal bay sameeyaan oo cunto la balance gareeyay wuxuugaa yaro bariisa wuxuugaa yaro khudaar ah adiga wax badko ma heli kartid wuxuugaa yaro labadoo xabo hilibkooda heli kartid Soomaaliya anaga afartoo xabiil baan korka saarina jawaanka kale oo qashinka ah yani shaqo sidoo uu yaqaanaan oo jirka cudursiya ayaa la badinaya labadoo xabo kor laga saaraya adiga waxa weeyaan saasoo kale uma cunno anaga waxa weeyaan saxanka weyn markaan fiyoorahan arkayna macnaha waxa ku yaalo dhanaa inta laga qaado fiyooraha la soo bixinaya qaarkood baa kaaga tagayn baxaas habarta la wal rabaano kay saxanka laga siina macnaha abar waxaan waa fahmay macnaha laga wada soo diray laga wada fahmay mogtahay maadaama guriga dad badan lagu joogo waxay leedahay wariyaha biyo ku buuxi aniga cirhayga soo bixinin ay leedahay marka war dad badan oo xataa cunooyinka garaaca jeeday habeenka wax cuni waayay maxaa yeelay beesa markii baashu bilaawatay war waxaan El Clasico cusub marka lagu leeyahay beenad u malaynaysaa habeenku naftaadka ka dhacaysay mid kale hadii ciyaar saan ay ku dhumaanaysan maxaa mar lagu sheegi waayay ma dadka dhan loo waalaya loo kadeedaya barbaraha maalinka mar la siisaadaalinay macnaha labadan inay kala foqeen baa looga bilowga ciyaartaba hoodi isagoo dhiinba Kevin De Bruyne Allah aniga ninkaas cimaamadiisu garabka ma hays ninkaas arkaas laacib waa arkifin kabiir waa ya halka buu dhigay markaaba kii hore dhashayo ya dabaaldig lagu dhiftay Etihad markaas ba qeer la kiciyay ariyo kulankaas kulan noqday ka war ya markay saas marayso bahasha ayaa waxa dhacday Liverpool maxaa ku taqaanaa karoosida dhinaca qatar kiya soo saaray maxaa dhacay Arnold waa soo laabatay Robertson inta ugu soo celiyay waa soo laabatay Arnold sa soo laabay Jota maxaa ku taqaanaa anugaas qatar waxa weeyaan habeenada Maxamed Salah iyo Mane gool laga leeyahay Jota meel ka soo baxaya Diego goal wuxuu la micno yahay goal waa Portugal ku goolash badan bixi ciyaaradkan waa markii ugu horeysay la arkay nin Portugal oo ka gool badan Cristiano Ronaldo waa ninka kan ninkii ugu horeeyay la arkay waa macna Cristiano Ronaldo wuxuu ahaan jiray uu goolash badan 18 gool uu hadda maray xaga kan muxuu marayaa 20 gool la marayaa wax kala weeyaan bahashu markay saas marayso dadkii dhan naftii ka dhici rabta halkii weer la qaado dadkii isku weerarsan yihiin baa waxa dhacday in City ay u laabatay goolka North City khatar waa daacadda markaan ka hadla City hal mid horta kama harto City ma taqaan kooxdan Liverpool waa iyo kooxdan Cambelow waa iyo kooxdan Cano waa maqaarka Man City meel kasto ka shaqeeya taas horta aan ku huba aad baan ula cajabay mid taa beel ku sheegay walaalkiiyo maqaarkooda baroorigooda siday Southampton la ciyaarayaan ay Liverpool ciyaaraan ka war Pep Guardiola maqaarnika waa tusiyay kooxda waa baray ya City maqaarkeeda cabsi ma lahan ما تقانا كوحدان كان بلوكيتي وايشوبا ما كلا تقانو مقار كان من ستين ومالكس تكشغينا ما تانا موادي ما واش شقينا مقار كودو اما كوحوين فلسفتو تنوى به ميدا كلا ليفربول هل ميد باكو اخوني جلولي دف ووف ما انت انا شبقا لكو كورتاقيا مرقد ليفربول عياري سكوحاها كلا يريركا ما كو ادكين كرتيت نفتا كهاد عيسا waxaad arkaysaa maanta oo dhan waxaad arkaysaa ma taqaana iyaga waxaad arkaysaa oo hal daqiiqo gudaheeda 20 weer 10 weer ku qaadad arkaysaa goolkii واسبيري يا كورجيس كرا هذا ما نحكي مالك وحكا marka hal mid meesha ka soo baxday maqaarka Man City meel kasta waa ka shaqeynaa
ama koox yar la ciyaar ama koox weyn la ciyaaro daacadii nimankaas banoonigooda waa garaacayn liverpool waxta ma loo dhihin dhagtooda wadeen ya halka liverpool iyana dafdaftooda aynu meel kasta ka shaqeyn maxaa yeelay liverpool oo noocaas u ciyaaraysa maana gool ku dhalinayay oo maxamed u dhax bixiyay iyo kii Jota ku dhufanayay ya waxa weeyaan liverpool daacadda marka laga hadlo ya liverpool dafdafta ay kooxaha kale ula ciyaarto si tulman ciyaarin marka caada dhaqameedka labada dhinac liverpool baa caada dhaqameedkeedii weysay city caada dhaqameedkeedii Bruno sidii u socday possession-kooda iyo ciyaartooda iska soconaysa iyo isku dayadooda nimankaas wariyahan mu wata hadanaya saasoy tahay waxay khasaariyeen jawaan goola ayay iska khasaariyeen nimankaas marka series bay ahaayeen liverpool marka waxa weeyaan waa lala ciyaaray oo iyagu ku dhowdu way ciyaareen waa liverpool iyaga wad ogta halka weerar ku helaan ku dilayaan liverpool waa nimankaas hal maanadi kubad la siiyo ilaahay ku urur weeyaan macna marka city ciyaartoogooda diyaas oo maqnaa way iska xakameeyeen kuwa kan marka ninkii Jesus ahaa ayaa la soo saaray washku si goolka ma ogtahay Jesus waa markii ugu horeysay Man City ugu soo bilowday safkood ciyaarta weeyaan tan iyo January ciyaar Premier League ah maanta Guardiola wuxuu madaxa ka dareemay madaxa ka dareemay madaxa wuxuu yiri alla ilaahay cunugan Jesus ah maanta maalintiisii waa macna waan dhalay wiilka Jesus ah walow laakiin cunuga tuug uu yahay yani xasid uu ku yahay dhowr gool ayuu Man City ka khasaariyay yani uu baasi karayo taas markay taas marayso Jesus uu gool ka dhaliyay ayaa markii qaybta saal loo baxay ya oo laba lagu dhaafay bahasha ayaa waxa lagu soo laabtay qaybta labaad markii la soo laabanay Liverpool waxa argano soo hormartay almiito markaas anigu meesha fadhi waa guri maxaan arkuwana wallahi daacad baan kaga hadlaya arkuwana niri yani waa la soo laabtay ciyaar City kor la soo laabtay macna wala almiintay inay war soo wadaan waa hubay oo ku leeyahay waa la qabtay maxamed halkaas u dhigay maane oo marmarka qaar wax khasaari jiray Brian waaba dhax dhigay bahashe yey halkaas uga geliyay laba gool markay bahashe ku taagan tahay ya ayaa mid Maxamed Salah ku tuuray geeska ka martay goolku laakiin City markaad xageeda fiiriso dhowr mar bay iska khasaareen fursado badan oo goolka ya oo hatta ay ku jirtay mid ugu dambeysay Mahrez waxaad u malaynaysan iyo marka Liverpool la ciyaarayo si uu yara dhoohan yahay sababtoo hada corner rigor loo dhibo korka mariyay alwaraabi mariyay still maantana gool albaab waa frin wala dhamay laha kubadu Messi buu isleeyahay gool Messi buu rabay kubadina cirka mariyay wardil hatta waa xanaaqay laakiin City san cimamada u tahay maxay ilay barbaraha lagu kala tagay Liverpool jabkeeda weeyaan City waa farxadeeda sababtoo ah Liverpool ciyaarta maalinka waxay natiijo fiican ku haysatay waa inay badiso wixii aan ka ahayn City u fiicnayd City iyagu hatta baraaji galay isticmaaladu tahay maxay wali iyaga hogaanka Premier League haya marka meesha ciyaaraha ka dhacday oo laakiin waxay labadaas ku tusayaan inay laba koox fantastic bay ku tusayaan ya classic cusub aad arkaysaa mid kale anigu dad badan baan dacwo ka soo noqday Sterling macnaha kaas kama baxdo ma dhaafiyad ileeyeen macnaha maxaan ku dhaafaa ninkaas nin caafimaad qabo ma ahane waxay leediin Sterling maxaa u saarada leediin walaalow haddaad City taageertana ya waxaan kula walaalow saaxiibo maxaa rabtaa waxaas ku aqbalaysi macnaha idinka niyo caafimaad ma qabtiin miya idinka idinka xabaab idin geyna umalina kana idin waala yaaqay dadka kale idinku waa daawataan ciyaaraha niyo Sterling marka waa u fiiriya habeenka horta Sterling caluka waa taasna waliga waan ku dhigi jiray Sterling caluka waa maartay kubadu Sterling dibrusinay soo waday wuxuu geynaa aan waa aqran raxiim caluka waa horta ordi taas waa ordo loo leeyahay wax orod miya ilaahay amarka cunuga si uu loo kale waa balance asaga balance garasneemba salaan xabadka lunta loogu weeyahay xagaas daba qaybta damba loo dheeriya wax la isyaara wad marmarayo wiilkii dhanba balance bini aadan toosan ma balaha mid kalena waa caluko bunay marbar wuxuu daacad wuxuu qodqana bunay isku wada ku keenay macna ya mid ka foorin haduu ahaan lahaa saaruq buu gami lahaa baasha mid kalena lugtu waxa leeyahay ninka qabatama ugu dhagan bunay markuu wata story amal nin oo report ma leedahay bunay tartiib lagu harre wax ma ugu dhagan leedahay qabatama ugu dhagan mid kale ninkan horta haddaad leediin waa garab sax weeyaan oo dhaliyo weeyaan laakiin ninka kan wariyahan dabaal ahaan loo adeegsanay mooyaane nin caafimaad qabo loo adeegsan kara ma aha ninka wariyahan dabaal maxaa ku taqaan falsafada wariyahan dabaal muxuu sheegaa wariyahan dabaal waxaa la dhahaa ciyaartooyga aadan wax ka filayn ee wax ku dhalinaya waxaa la ciyaartooyga aad u arkayso inuu madaxa ka xanuunjinayo ee habeenaad ku baxsanayso raxiim nooca buu ku tayahay markaas fiiriso raxiim hada bilow ma aragtay intuu dibrugool ku dhalin ya bilowgiiba Alisson buu ku garaacay goolka ma caafimaadayo iskuulkiis arday badan ka baqlan jibisay Vinicius Junior ardayda Raxiim Sterling iga mid ahaan jiray aniga waa ka saaray iskuulkaas dad badan baan ay dhahay Maxamedow maxad ugu saartay ardayda Raxiim Sterling ninka la yiraahdo Vinicius Junior waxaan Vinicius waa caafimaaday beenteena ma waa ka fil xiradkan Vinicius Junior banagiisu ku dhacay waana caawinaya waan dhalnaya arday Raxiim ku jiri jiray Vinicius marka iyo ninka la yiraahdo Timo Werner iyo Alvaro Morata iyo
waa badan yihiin adiga dadka kan Alvaro Brias xataa waa imutaysanaya wuxuu leeyahay Maxamed ma diga saartay baasha ولكن نيكا تيم فينر ليداد اسغا ما سو سocdo maxay la ka bagalaas waabo iskoolka raxiim maamulu ka yahay ka bagalaas u yahay laakiin finish waa ka baxay iskoolkaas marka raxiim istarin aniga ayaan la dhihin wariyahan wayaan ama nin fiican wayaan la dhihin waa wariyahan dabal nooc kooxu qaar haduu u taylaa maanta like wariyahan dabal baa loo isticmaali lahaa ya kooxu qaar raxiim istarin wax u dul qaadan lahaa maanbe horta ninkan kala wadii loo geey lahaa oo dul qaadan lahayn be kala wadadkan caafimaadka u jeedad u geeyleed ninkana like wariyahan dabal oo isticmaal lahaa origiyo kale ka noqon lahaa meesha cunugooniyow maxaa lagu hakaysad leedahay taa wata midda kale kulanka wuxuu ahaa kulan wadna dhaglays buu ahaa ilaahay markiis badna ya nafta ka dhacaysa ka war kana wata naftu dhaglaynaysa ma taqaana waa reer Man City reer Liverpool wayaan ha maxay iyaga habeenku ciyaaray mugta final ya Premier League final buu ahaa wadnuhu marka dad badan u dhaglaynayay ya midda kale dhaglayska ma dhamaanay isbuuca damana isku soo laabanay FA Cup ayaa la soo ciyaarayay sama final ya hadda aan farxumo ka dhacday ku qaad isbuuca dambana mid kala ka dhici doonta labadan way isku baabi'i doonaan hatta waxa laga yaabaa in isla gaaraan finalka waxaad arkaysaa laba kooxood oo ay falanqayaasha ku tilmaamayeen yihiin kooxaha ugu awoodda weyn iminka qaarada Yurub Pep iyo ninka la yiraahdo Klopp maskax waa shiilan laakiin still wali maskax kale u baahinay si shiilan waxay isbuuca dambe ciyaarayaan toto ayaa ka dhacday waa lagu dagaalamaya koobkii iday iyo ku daynayay Guardiola wuxuu taagan yahay ma ku siinay hogaankan markii ugu dambeysay Liverpool ay hogaanka Premier League maalin intay qabato ku dhameysatay waxay ahayd October nimankan waa geedka waa loo diiday ayaantan ya maalin si ku meel gaar ku qabteen tan iyo December ya laakiin inay hogaan maalin intay qabsadaan ku seexdaan arlib cidi yar hoob ku jeef in liirado hogaankiisa ma dhicin October ugu dambeysay sidii aad mushkil kabiir waa moogta adiga dadka la ciyaar ninkan la tartamaya wala markay saan Liverpool arkaan qarowga waxa uu soo baxay ma taqaana yaani markay saan arkaan xaaladda laba still advantage-ka faa'iidada City ba haysata oo still halkii dhibcood horeeyaan marka Liverpool saan arkaan waxa ku soo dhacaya markasta ya waxa ku soo dhacaya iyagoo lagu wataa marka hore laga qaadi jiray iyagoo saan isku daba ordaya ay isdibaal ku qaadi jirtay marka waxa weeyaan City way Guardiola wuxuu hogaanka ma ku dhiibi kari ya waan haysanaya karo marka City way ogolaan laadahay marna Liverpool hogaanka inuu dhiibto وانا arki doona City jaabadu ku fidoon City saas u ciyaarayso oo Liverpool saas u kara karinaysa ma taqaana City jaabadu ka hosbixini ilma yar oo bulkeeta City dhiba City ciyaar bay ciyaareen qatar wa kooxaha weyn hadda Liverpool saas habeen kula ciyaartay laakiin City dhahe ilma yar oo hadda City ku dhiman jaabay wa laakiin jaabadu maxaa taqaana ilma adeeg qawa oo ay tahay waya Man City inay madax ka garacdo iska siixiyaan ilmo wala iska siixiyaa ilmo lama farac ciyaaro inta la farac ciyaarayaan bayna ya waaka waa ku tagaya mid taa kaadiga marka isbuucadan FA Cup-kii baa noqon doontaa marka labadaana October 3-deedii bay ciyaareen laba bay galeen April 10-keedii bay ciyaareen laba bay galeen marka waan arki doonaa isbuuca dambe bahash sidii noqoto حتى أفرتي سيزن وجود بي مان سيتي waxay shay 300 بعود ليفربول waxay shay 300 بعود استيل هل بعود u dhaxaysa حتى أفرتي سيزن وجود marka بعود la soo daro waa laba kooxood mushkil isku noqday mid kale Liverpool koox laga badi kara ma ahan iyana si khatar ku tahay maxay yeelay adeeg waa horta in kasto in cadeeskeedii iyo wixii aan ku aqaanan ku arkeen in Liverpool in cadees khababaa darba iyo walagu wala horta wax ismeenu jirin habeenka still laakiin ma laga badino wax weyn ma si biti badan yihiin iyagana Alice ma bal dhaafi kara marka qaar bahasha ya Liverpool saxdii ciyaar ugu dambeeyay banaanka ay ma taqaana ay bareejo ku soo gashay Tottenham la soo galeen Chelsea la soo galeen Manchester la soo galeen still marka wax weeyaan mididooda ku aadan horyaalka ku qaadan wali waa u afaysan tahay hunguriyaha iyo cidda laakiin City ayaa soo afjartay habeenka Liverpool 10 ciyaar Premier League u badinaysay iyaga soo afjareen bareejo la geliyay isoo kale Liverpool oo 8 ciyaarood isku xigay kulmada banaanka badinaysana bareejo lagu soo xiray City kadib waxa waxay yiraahdeen socda ya anaga mani dadka ku ururdaysaane ya mid kale kulanka wuxuu ahaa kulankii ugu horeeyay Man City intay gool ku hormartay ciyaarta ya ay badi kar weys markii ugu horeysay ciyaareedka Premier League maxaa yeelay 22 ciyaarood oo xilli ciyaareedka Man City gool ku hormarisay gabaan ciyaaraha way badinayeen waa markii ugu horeysay City gool ku hormartay aynu badin ya la ciyaar Liverpool markii City Bruno gool u dhalay macnaha intaan qorayaan dhahayo Kevin ayaa dhariyay laakiin la dhamaadka aragno waa ogaa macnaha waxaan sirdada Man City ba gool dhalisay dadka reer Man City nin gool dhaliy hadda macnaha war xun u sheeganaan islaam macnaha mooyaane waa ku fadhiin laga bareejeen karo markaas waxaan ku soo qoran dhahaya Kevin De Bruyne ayaa hogaanka siiyay Man City laakiin la dhamaadka uu arkayna macnaha waa xogaa yar eray baan dhax gelinaya meesha oo ku cadeynaya welinaysa wax dhamaan ayuu isla markii Jota keenay mugtahay marka nimanka la ciyaarayaan nimanka ma laga joogi karo dadka balay horta taagan nimanka wariyaanadu indhaba caadi ma aha inkastoo habeenku si u yara hooseeyeen laakiin waa qatar markasta iyaga marka habeenkan ka hor City kulan walba
labaatan iyo laba ciyaarood ay gool ku hormarayeen ciyaaradu way badinayeen waxay noqonayaan xataa kooxda Guuris Premier League ee sidaas taariikhda sameeysa mid kale hore uma sameyn haddaba maxaa la sugayaa todoba ciyaarood ayaa ka harsan Premier League kaliya todoba waraajiri doona bilishwiishka yeero todobada ciyaarood ee harsan istilna hal dhibcood baa loo u dhaxaysa bal aan ku sheego City markaad fiiriso kulamo bulukeeti u haray yani kulamo jilacsan baa u haray Liverpool waxa uu harsan kulamo shub iyo bulukeeti oo la isku daray waliba shubka waa badan yihiin waliba Liverpool shubka u harsan ugu yaraan waa afka hor xataa shubka xataa muu dambeeya waa hadda u soo horeeyaan Liverpool marka waxa weeye iyaga xataa waa yaabayin maxamed saalax wuxuu leeyahay maalinta jadwalka macquul ma ahan sideeda la ciyaareen uu yiri jamnigan soo ciyaarina haddana sidee FA kula ciyaarina haddana Man United la ciyaara haddana Everton la ciyaara waxaas macquul ma ahan yiri macna marka Liverpool iyada waxay u muuqanaysaa meel in loo wada u muuqanaysaa laakiin mid baan ku sheegaya Liverpool kooxa u safanaad arkayso marka indha ahaan ka aragto waa naxaysa horta kooxaha ma Liverpool u dhiman waa kooxo waaweyn magacu bay ka weyn laakiin caafimaad laguma qabaan ya dadkaan u jeedo birin u soo raadi horta walow minad bariyan laga soo xanaajinayo laga cariisinayo laakiin magacyadu bay dadkan ka weyn mooyaan Liverpool ya horta Liverpool iska celi karta dadkan waa la tusay dadkan kooxaan kalow Liverpool short ka cabsanaysi waa sida la ciyaar nimankan baa garanaya laakiin Liverpool dadkan uu dhimin lagu leeyahay magacu baa laga weeyaa mooyaane wallahi dad caafimaad lagu oga maahan City way ogeedba way gordeen wuxuu yiri ciyaar soo sheegay wuxuu yiri haddii inaga naga qaataan dhibcada cid nooga qaadaysa cid wax kala ma lagu dadkaas dadka hore dhan been waa dhaafay Guardiola Guardiola saacad yiri macna dadka ma xushmeen xataa Guardiola ma xushmeen Man United ma xushmeen mana xushmeen Tottenham mana xushmeen Everton iyo wixii kala soo halmaala wuxuu yiri hadii inaga dhibca naga qaataan nimankan in garaacan guri nagu garaacaan horyaalkan ugu hambaliyayno maxay leeyahay Liverpool cid kale ka horeyso celin doonto ma la yiri macna waa ogyahay marka sida anigu ku dhahay wasna ogyahay wuxuu ku leeyahay meesha wax kaga maray ana xataa saas baan qabaa dadka magacyadu ka weeyeen laakiin caafimaad taas lagu ma oga balse Benoni weeyaan waa kamal daarin calaabo City ciyaarana u harsan City laakiin wax u harsan waa jaabay laakiin baan ku leeyahay Benoni calaabo waa ilmahan waxa ku jira madax dhagyaalaha ka buuxo ilmaha la far ciyaari baa ku jira City ilmaha hadeer bani ka badiyaa waa in goolkoodu yimaada goor hore hal gool wash laba u labay saas waa laakiin hadda aragtid City Campbell la dhaafay iyo gool looga hormaray ilmahan habeen kasta ku dhaw barajal aad gashana dhibcaha ka ruufka dhahay hogaanka waa laga qabanaya City aan ku horeeyo Brighton oo miyaan waxaan ku Arsenal garaacay Brighton taas madax adeeg leeyahay Bezumi cidiisi maaho iyo tababaraha qatar waa madax adeeg waa ya laakiin waa madax wala jibi kara wala garaaci kara Watford waa iska bulukeeti dibleen waa iska noqon kartaa Leeds macna cusub soo yimaaday way rooyin ayaantan Newcastle waa Arabti Mohamed bin Salman Wolves wow waa qatar weeyaan Bruno laga kuwiisa West Ham Moyes City horta hadii la gaaro horyaalka duu gaaro macnaha maalinta dhamaadka maalinta ka horeysa ya kulanka ugu dambeeyay kulanka hore haday gaarto xogaa qataatay meesha ku gali kartaa City West Ham waa kood ugu weyn ugu soo horeey weeyaan Aston Villa ugu dambeeyay maalinta Gerrard ayaa raba inuu Liverpool saacido waaba hadii halaas la isla gaaro oo Liverpool kulmadan kor ku fin Liverpool waxa uu harsan Man United hey Everton hey Newcastle yeah Tottenham Aston Villa Southampton iyo Wolves ya caafimaad qabo marka Liverpool ya u adag Liverpool hadii wax la sugayo waa Man United Everton iyo Tottenham waa Newcastle Aston Villa laakiin ma saas maahan Southampton qudheed iska dib badan tahay laakiin no waa ku jiwaan xal dhalay iyo Wolves dhamaadka Liverpool jirta Liverpool marka hadad aragto Liverpool Man United soo dhaaftay Everton soo dhaaftay ya iska dhaaf Newcastle dhaafayaan kuwaas ugu badan tahay Tottenham ma dhaaftay aragtid meel ay socotaa waxa socdo ma hadad aragtid kuwaas igu isdaba mariyay ee soo dhaaftay aragtid oo wali si soconaya nin horyaal u socdo waa la yaqaanaa walaalkeeyo nin horyaal u socdo waa la yaqaanaa City hadii intay kuwa nimankan la ciyaarayeen hadii isku kufaan waa ahaatay laakiin Liverpool hadii jibaaladan ka soo baxana waxba dhahay geedka mu Liverpool qaadana laakiin sida muuqata City ayaa kulama jilcan inta waa inta September ayuu dhaliyay goolkiisa ugu horeeyay Premier League tan September ayuu dhaliyay goolkiisa ugu horeeyay Premier League ninka la yiraahdo Gabriel Jesus wuxuu ku leeyahay anigu halay wuxuu hadiiba gool loo baxdo xil ciyaareedkan wuxuu ahaa ninka dhalinayay kulmada muhiimka gool PSG Arsenal Chelsea Liverpool waxa weeyaan Jesus waa maalinku markii ugu horeysay ahayd oo la safatay January safkood lagu soo bilaw waana ka baxsaday oo Guardiola ninka uu aaminay wuuna cimaamadayo 13 ciyaar buu ciyaaray Itixaad ku ciyaar xagan 8 buu ku soo bilaw 5 kulay 4 buu ku caawiyay waliba Jesus wuxuu hadda dhaliyay Premier League gool ka badan Diego Costa oo dhaliyay 2 gool isagu wuxuu leeyahay 3 gool oo Premier League dhamaantoodna goolas wuxuu ka dhaliyay penalty area cunug penalty area khatar ku yahay ya Jesus wal anu ninka waa aw marba nafta ka dhici gaartay Guardiola naxdin markii gool haya Man City mugta gool Man City shuqlaysa ka bad macna intuu Ronaldo wax kale inayba kubad koos bixi rabtay ya markaas Guardiola naxdin nafta kaga bixi gaartay war ma saacadana Bruniga gadaal inta ugu baasay Bruno go xariiqda gal ku soo celiyay
مقتا جولاي ما استمعنا لغها جري لغها حنونا معنا سيد وحور دحدا كعيار راكور أعرف كبير بطنا ما أنت إنه صبح ورمرنا أرملك عبد القادر بكور إنه صبح جعله معنا وحنا جورديل كويس توليه جورديل وحجري نيجا وحجوا هيستا نيجا ما دحدا عيار سيس كحدي هور دحدا موسى عيار جري مرة جورك وخبسنا مرة نيجا أصاب شغل يسكبدين هاي نيجا اسكال الله حلو والله جول كاس لود دي معها ديبرونيا وان ميدق جيد بدحوانك كل الله يحل عيارات كما داركيسا لح جول يكون لوقتا بدحيد اونتيس اهين ميدقنا شنبو كدليو وانين فانتاستيكا ولبا ديبرونيا اي افرتي عيار سولا بريمير ليج ليفربول كوري مادي مر انتو كدليو ku caawi mar uu ku caawiyay maanta uu ka dhaliyay still uu ka dhaliyay waxa weeyaan kal Liverpool Kevin De Bruyne ila tayar Liverpool maahan ila hada kor wuxuu mataqaan Liverpool baan jeclaan jiray bariga yaraa aadma dadka sida diilaysa ku fiina lix gool ayuu dhaliyay lixdii ciyaarad la soo dhaaf Man City uu ciyaaray waana markii ugu horeysay afar ciyaar suuxi tartamada inuu gool dhaliyo markii ugu horeysay weeyaan kooxdan Arnold Qudhiisu wuxuu noqday xilli ciyaaryahankii ugu horeeyay Liverpool soo maray ee xilli ciyaareed gudihii 17 gool caawiya qarigan 22aad xitaa wuxuu ka sarmaray Steven Gerrard oo hadda koor 16 gool caawiyo xilli ciyaareed kaanu 17 gool buu maraya waan in qatar badan waliba xilli ciyaareed kan difaacida ugu caawinta badan Arnold wuxuu caawiyay 12 Robertson 10 Cancelo 6 Reece James 6 ogowna shantii ciyaar ugu dambeeyay ee uu banaan ku soo ciyaaray Diego Jota Liverpool banaan ugu soo ciyaaray kulamada banaanka Man United uu ka dhaliyay Everton uu ka dhaliyay Tottenham uu ka dhaliyay Arsenal uu ka dhaliyay Man City uu ka dhaliyay halis waa ninkan yaaqay waliba isaga iyo De Bruyne iyo Son waa ciyaartooyga xilli ciyaareedkan ugu yaraan 5 gool iyo ka badanba ku dhalay lugahooda bidix iyo midigba malaha barajadan Jesus iyo waxa uu go'aanaaba Diego Jota maxay leeyahay ma jirto labadooda ciyaar laga badiyay kulan Premier League iyo gool dhaliyeen hadii mid badin lahaa maanta mid kale rekoor ka jabi lahaa ka hor maalinka ma dhicin ba Jesus in laga badiyo kulan uu isagu gool dhaliyay Jota ma dhicin kulan isagu gool dhaliyay ciyaaraha Premier League laga hadlaya Jesus 42 kulan ayuu 3 kulan barajo u galay Diego Jota 27 kulan ayuu badiyay 6 barajo u galay marka labadoodu midkoodna guul darma qaadan isagoo gool dhaliyay waa sababta barajaha loogu tagay marka waxay markii ugu horeysay Liverpool xil ciyaareedkan iyadoo qaybtood hoggaan laga hayo ciyaarta ay dhamaatay qaybta koowaad tani muddo ku dhow sanad weeyaan Mo Salahna waa kaayo rag ugu caawinta badan Liverpool hadda labaad ka galay niga ugu caawinta badan Liverpool taariikhda soo maray dhanka goolasha caawinta marka laga hadlo waa Gerrard 212 gool ayuu ku leeyahay Mohamed Salahna 159 gool Ruben Fowlerna 158 gool waliba Mo Salah ninka la yiraahdo 35 gool ayuu ku leeyahay 47 ciyaar Premier League uu ku rimaade kooxaha Big Six-ka loo yaqaan weynka intuu Liverpool joogo 26 goolna kooxaas uu ka dhaliyay 9 uu ku caawiyay ugu dambeyntii Mane Man City uu jecel yahay gool ku dhaliyay wuxuu ka ahaa kiisii sideedad uu ayuu ahaayo Man City uu ka dhalanayo waa koox ugu jecel yahay taariikhdiisa marka fiiriso koox ugu jecel yahay Crystal Palace ayaa ka badan uu ka dhaliyay 3 gool Arsenal 8 Chelsea 8 Aston Villa 8 Man City 8 waa koox ugu jecel yahay waa goolka ugu horeeyay Itixaad ku dhalanayo